عليكم الله بركات أخواتي كسر هذا شانل كيغا ولا شنو معايمن ما انتو حربا بريسكا بيهيسا ما شاء الله iyo waxa yiraahdo waa bariis ma sha Allah saa sameystan sida arkaysan sida wajiga ma sha Allah maskiga looga dhigo kabacdi hadhow markaad ku dhajisid ka qaadaysaa sida madragtay paperka oo kale markaad ku dhajinaysid waraaqada wajiga ukunta oo kale lagu sameysto kale oo bariis waxa weeyaan bariiska waraaqadiisa ma sha Allah halka marka waxaa noogu jira biyihii bariiska هذا حاجة waxaa jira biyihii bariiska ما شاء الله marka waxaad sameynaysaa waraaqada marka xabad ka soo saaratid way fududahay oo jarjaraysaa maqaskaad ku jarjaraysaa si wajigaaga aad ku dhadhajin kartid hadhow toole marka xabadan waa ta madaxa xagga frontka aad saaraysid korka sare ما شاء الله kan daamankaaga aad ku sameynaysaa si fiican u jartid iyo labadii daan kana waxa weeyaan labadu si kala goynaysaa si sankaaga iyo maad aragtay garkaaga ay kuugu noqoto ee noqonaysaa markaas ma sha Allah hadhow qofku wajigiisa ku dhajinaya way jilcaysaa soft bay noqonaysaa haddaad doonto garintiigaad ka dhigan kartaa waxaad soo qaadaysaa maal wardi iyo koob biyo ah ayaad ku daraysaa waxaad ku karinaysaa garintiiga kabacdi markaasaad ku dhex ridaysaa isticmaalka anu markaa kii bariiskan isticmaalaya biyihii bariiskan isticmaalaya maadaama biyihii bariiska isticmaalaya uma baahni ma sha Allah soo markaad kan ka soo isticmaashin aad wajigaaga ku dhadhajisid u jilcaya waa milix buu noqday saasuu soft u noqday wajigaaga ku dhagaya marka wajigaaga ku dhagood ku daynaysaa in yar ka bacdi ma sha Allah wajigaaga wuxuu ka dhagayaa qurux wad ka soo qaadaysaa waxa kala doonaya markaa inaad samaysataan ma sha Allah waxyaabo wajiga dadka huruud oo kala xasaasiyada ku leh وانا وفيتامينو ما شاء الله aad u qiimo badan وعويان كان وجهك وعيلية هذا وجهك وعيلين وتكدا في كرتا باو لا فيتامين كان وكامو كان وحويان روزي بودر ما شاء الله انت بو حوين فيتامين هان صدر كيسين ما شاء الله وضعتين فيتامين هان بالو عبا سموديغا لو ترسدا اخواتي aad بو ما شاء الله في عيهي dadka huruudda aan qaadi karin kan ku bedesha wajigooga xasaasiyada huruud ku leeyahay kan ku bedelo insha Allah iska daa huruudda aad ugu fiican yahay roosiko iyo kaamugaad ku darsanaysaa ma sha Allah lagama sheekeyn karo kana waa baab ma sha Allah wajiga xoogaa ugu cayilinaya marka hal meer baa isku keenaysaa teaspoon mid walba teaspoon baan ka soo qaatay marka ma sha Allah teaspoon haddaad mid walba ka soo qaadatid halka maalin aad marsatid ma sha Allah kama sheekeyn kartid maalin walba marsan kartaa waxaan waa vitamin ma sha Allah waxba kaama dhimayo siiba ma sha Allah waqtigaad soo rawaxdid baa fiican si glowing ma sha Allah ku siiyo oo vitamin C fara badan baa ku jira vitamin C gana caadi xilliga loo baxay looguma fiicno xilligaad soo rawaxdid wajigaaga meedhid nadiifisid ayaad samaysan kartaa ma sha Allah lagama sheekeyn karo soo markaad vitamiinkii soo qaadid baadarka maxaad ku sameynaysaa ma sha Allah waxaad u baahan tahay rose water inaad ku samaysid haddaad doontidna plain yogurt aad ku sameyn kartaa caanaha ceerta qof boosoodan laakiin degdeg waxa ku cadeynaya haddaad cadeyn u baahan tahay rose waterku aad buu glowing cadaan badan ku siinaya laakiin haddaad doonaysid ma sha Allah haddaad tahay dadka xasaasiyada mar kasta leh sensitive-ka wajigooga amba xasaasiyada leh waxaan kugu waaninayaa inaad ku samaysatid caanaha ceerta plain yogurt-ka insha Allah inta sidaana ma sha Allah caanaha ceertu waa kan waa plain yogurt-ka aan waxba lahayn aad u fiican labadaba waa isku dari kartaa haddaad doonaysid ma sha Allah wuxuu ka ilaalinayaa wajigaagu wax kastoo kugu cusub inuu cilladu keeno aad buu ga ilaalinaya ma sha Allah aad buuna u fiican yahay ma sha Allah ilaa qoortaada ilaa lugahaaga waad marsan kartaa gacmahaaga waxyara kursigaysaa inta kugu qalalayo ما شاء الله marka baadka sii gali rabtid iyo turkaaga jikis ku siinaysaa 5 marka ku qalalo baadkaaga hore ka galaysaa
هكاس ما شاء الله aad ma sha Allah ku anfacaya dadka ma sha Allah huruudda xasaasiyadda ku ah dhibaatada ku qaba wajigaagii oo soo nadiifisay oo bariiskii ku samaysay ka bacdi aad kana samaysid ma sha Allah lagama sheekeyn karo haddii wajigaagu xasaasiyad leeyahay fara badan amba cuncun leeyahay waxaan kugu ogaay caana ciirta inaad wax walba ku laaqato ma sha Allah wuu kaa dejinayaa haddaad huruudda xasaasiyad ku leedahay inaad rooshiibka aad iskugu ogaatid haddii wajigaagu cayilnayna baobabka kaa kale insha Allah sawirkiisa ma hayo hoostaan nisoo dhigay insha Allah waayo meel baan ku shubtay vitamiinkaas ma sha Allah mar walbana xitaa kama iloobo waan jeclaa vitamiin E-ga inaan wax walba qaaqayo aan ku darsado waayo wuxuu ku sameynaya ma sha Allah isaguna wajigu ku ilaalinaya teeda badan aad u fiican yahay ku fiican markaa ma sha Allah hablaha isku ogaada waxa kale oo doonaya inaan tuso vitamin aan inuu caadi ahayn oo la cabo oo collagen oo biyo ma sha Allah oo aad u fiican wad cabi kartaan ma sha Allah oo hablaha waa collagen waxa ku jira 10 xabadood baaketkii ma sha Allah isku day inaad cabtaan ma sha Allah lagama sheekeyn kara akhwaati aad wax badan buu tarayaa jirkaaga vitamina fara badan baa ku jira skinka iyo maqaarka iyo timahaba aan laga sheekeyn karin biotinka timaha ku jira vitamin C E B6 A D zinc copper collagen very strong ma sha Allah aad u fiican yahay waxaan ugu ogaay ma sha Allah 3 box hadda dhamaysan faa'iido natiijaad ka helaysaan waana cabitaan macaan ma sha Allah maalintii halka dhala laga rabaa inaad cabtid ma sha Allah lagama sheekeyn karo marka jirkeena aad doonaysan soo jeesataan ma sha Allah vitamiinadan aad marsatid smoothiga ku darsatid maqaarkaagu mar walba soo noqonaya xitaa hadduu maqaarku ka cilmi degdegay uu soo wanaagsanaanaya marka isku ogaada ina vitamiinada ma sha Allah aad uga qayb qaadatiin oo naftiina u soo ibsatiin ma sha Allah waa wax fiican ka walaalaha waxaan rajeynaya insha Allah waa ka rose kii waxaan u jeedaa rice flower kii markaa hadhow marsanaya aniga insha Allah isku dhadhajinaysa markaad iska qaadid waxaad ka daba marsanaysaa hadhow ma sha Allah waxaana ka sameeyay sandwichsay kamo iyo rose hip ma sha Allah kama sheekeyn karo kana waxa weeyaan waa rice ku soo kale ku jira biyaha wax yar waa la soo qadacinaya insha Allah wax naga iloobay biyuhu waa qadac marka biyaha bariiska oo kulul ayaad ku samaysanaysaa waxa loogu talagalay in cuntada lagu laabto skinkana maqaarkana waa loo isticmaali karaa ma sha Allah waa bariis sida flower kala waana khafiif maqaarkana waa loo isticmaalaa sida ogtiin ma sha Allah wakaas hablo insha Allah khayr baan rajeynaya inaad iga faa'iideen soo dhawaada walaalaha igu cusub kuwa kalena insha Allah waxaan leeyahay subscribe iyo like insha Allah walaalaha cusub inaad noo saartaan kuwii hore noo sii joogan insha Allah wixii aad su'aal qabtaan iyo ma sha Allah ka iloobina channelka waa channelkiini wassalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh